kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal halkaad naga daawanaysaan Booliska Media wararkan maanta idinku hayno qodobadiisa waxaa ka mid noqon doona Taliska Booliska oo warar ka soo saaray dagaal ka dhacay Garoonka Aadan Cadde wariyaheena oo si la yaab leh lagu dilay Hiiraan wararkii ugu dambeeyay khasaare ka dhashay dagaal xalay ka dhacay Kadhacay daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaas oo faahfaahsan dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa khasaare ka dhashay dagaal kooban oo xalay ka dhacay waqooyiga magaalada Kadhacay ee xarunta gobolka Mudug dagaalka ayaa waxa uu dhaxeeyay ciidamada ammaanka Puntland iyo rag hubeysan oo ka ganacsada waxyaabaha ammaanka dooriya kuwaasi oo ku sugnaa agagaarka xirada Kebiska ee degmadaasi israasaaseen dhex martay labada dhinac ayaa la sheegay in ay timid kadib markii ciidamada ammaanka Puntland ay gudaha u galeen goobta ay joogeen rag hubeysan waxaana sidaasi ku bilowday iska horimaad inta la xaqiijiyay waxaa dagaalkani ku dhaawacmay ugu yaraan 5 qof oo ka kala tirsan dhinacyada israasaaseen waxayna kala yihiin 3 askari iyo 2 kamid ah ragga ka ganacsanayay maandooriyaha qoraal ka soo baxay Taliska Booliska qaybta gobolka Mudug ee Puntland ayaa looga hadlayay howlgalkaasi waxaana warkani lagu sheegay in ciidamada ay gacanta ku soo dhigeen 9 kamid ah rag hubeysan ee la dirirayay ciidamada booliska ayaa sidoo kale intaasi ku daray in cid kasta oo ka ganacsata maandooriyaha ay la mid tahay kooxaha cadowga ku ah Puntland shakilaan koox kasta oo ku lug leh si dhuumasho inay uga ganacsato maandooriyaha halista waxayna xiriir dhow la wadaagtaa cadowga duulaanka ku ah nabadda xasiloonida horumarka iyo sareynta sharciga balse ciidamada ammaanka waxay habeen iyo maalin u taagan yihiin ciribtirka iyo beegsashada shakhsiyaadka ku lug leh falalka noocaasi ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay booliska muddooyinkii la soo dhaafay ciidamada ammaanka ee Puntland ayaa xaqiijinayay howlgallo lagula dagaalamayo kooxaha burcadda iyo kuwa ka ganacsada maandooriyaha ee ku sugan maamulkaasi haatana afhayeenka ciidamada booliska Soomaaliya Aadan ayaa ka warbixiyay weerar ay dhalinyaro Soomaaliyeed Shaley ka geysteen garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde xilli laga soo celiyay wadanka Turkiga ayaa shaaca ka qaaday in marka ay soo caga dhigatay diyaaradda siday dhalinyaro laga soo tarxiray Turkiga ay weerar ku qaadeen shaqaalihii la socday Turkish Airlines isla markaana farkaasi uu ku dhaawacmay mid ka mid ah shaqaalaha diyaaradda afhayeenka booliska ayaa xusay in dhalinyaradani dib u soo celinta dhalinyaradaasi ay la xiriirto kadib markii uu dhacay sharcigii ay ku joogeen gudaha dalkaasi shaqaaqadan ayaa dhacday 19 December 2021 waxaana haatan baaritaano ay wadaan saraakiisha laamaha ammaanka waxaana la xiray 5 eedeysano oo haatan lagu hayo xarunta hoggaanka baarista dambiyada sida uu shaaciyay afhayeenka booliska sidoo kale wuxuu intaasi raaciyay in baaritaanada socda iyo wixii ka soo kordhay ay dib ula soo wadaagi doonaan guud ahaan bulshada Soomaaliyeed garoonka diyaaradaha Aadan Cadde 19 December 2021 waxaa ka dhacay isku dhac maray rakaabka diyaaradaha Turkish Airlines iyadoo isfahan darro soo kala dhaxgashay ciidamada booliska oo lagu wargeliyay ayaa gacanta ku dhigay eedeysanayaasha oo ku xiran xarunta hoggaanka baarista dambiyada natiijada ka soo baxdo dib ayaan ka soo gudbin doonaa ayuu yiri afhayeenka booliska Soomaaliyeed oo la hadlayay warbaahinta xukuumadda Ankara ayaa muddooyinkii dambe bilowday in dadka aan cusboonaysanin sharciga iyo kuwa uu ka dhacay inay dib ugu soo celiso Soomaaliya maadaama sanadihii u dambeeyay ay kordhayaan Soomaalida ku sii qulqulayso dalkaasi haatana wararka naga soo gaaray gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya ayaa sheegay in maanta maleeshiyad hubeysan ay dilal qorshaysan ka geysteen deegaano hoostaga degmada Matabaan oo ka tirsan gobolkaasi dilalka ayaa mid ka mid ah waxa ka dhacay deegaanka Wardheer waxaana loo geystay wiil iyo aabi sida ay inoo xaqiijiyeen ilo dadka deegaanka oo aan la xiriirnay labada marxuum ayaa waxaa la sheegay in dilkooda ka dambeeyay maleeshiyad beelaad wuxuuna salka ku hayaa aana qabiil sida aan xogta ku helnay sidoo kale wiilkii aabiis la dilay ayaa ahaa reer guuraa muddooyinkii la soo dhaafay ku sugnaa agagaarka degmada Matabaan oo ah meesha haatan lagu dilay dad badan ayay la yaab ku noqotay in qabiil dartiis hal goob lagu dilo wiil iyo aabiis oo shacab ah isla markaana aan waxba galabsanin waxaana haatan bilowday baaritaano dheeraad ah oo ku aadan dilkooda dhinaca kale tulada
buskud oo u dhow isla deegaanka wardheer waxaa lagu dilay qof kale oo saddexaad waxaana isna dilkiisa uu salka ku hayaa ana qabiil oo ka taagan halkaas wali ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha ammaanka iyo sidoo kale maamulka gobolka oo ku aadan dhacdooyinkaasi dilalka ah ee ka dhacay Hiiraan dadka deegaanka ayaa dhankooda walaac ka muujiyay dilalka arxandarada ah ee ku sii kordhayo deegaanka waxaana haatan arintani ugu sii daraysaa xiisada beelaha ee haatan taagan si kastaba Hiiraan ayaa waxaa ku soo noqnoqday dagaal beeleedyo ka dhashay dilalka aan kala joogsiga lahayn ee ay maleeshiyaadka hubeysan ka geysanayaan deegaanada kala duwan ee gobolkaasi daawadayaal intaas ayaan ku soo afmeerayaa war wixii dalka iyo dafaaca caalamka aan maanta idinkaga hanay wararkeena maanta waxaa idiin soo saaray oo idiin akhrinaya anigoo Abdinajib Abdullahi najib khiyaarintaan wararkeena dambe dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo fi amaanillah